digirta magaceeda waxaa la yiraahdaa soya bean waxaa la beeray bisha saddexaad ayadoo sii maraysa 14-keeda waxay germination samaysay ay soo baxday 18 ayadoo bisha sii marayso 27 waxaa laga sameeyay gaabing ahaan in la buubuuxiyo la sameeyay waxaan sameynaynay dalagan soya beanta oo markii ugu horeysay aan ku sameynaynay wadanka xilliga ugu horeysay ay tahay dalagan waxaan soo wadnay muddo 3 bilood xilligiisii bislaashaha ayaana hadda la gaaray digirtan waxaa variety oo weligeed uusan ka bixin weeyaan Soomaaliya marka waxaan ka fiirinaynay climate-ka inay la qabsan karto Soomaaliya climate-ka inay la qabsan karto aan ka fiirinaynay iyo production-ka ka fiirinaynay marka labada way aniga aan ku fiirinaynaba waxay noqotay laba way oo aad iyo aad loogu qanco labada way waxa waaye successful oo soo dhamaadeen waa lagu guuleystay haddana waxay maraysaa heer oo harvesting-ka uu dhawayo 77 maalin si maraysaa marka alxamdulillah waxa weeyaan heer sare aan joognaa masha soya bean waxa waaye waxay ka mid tahay digiraha ugu badan oo adduunyada laga beerto Galaximachus origin ahaanna waxa waaye waa taariikh fogay leedahay oo Mareykan ka soo jeeday sidoo kale waxaa lagu asteeyay dadka asalka Mareykanka hor u deganaa jiray oo Indianiska loo yaqaano tartiib marka meeshaas ay ka soo baxday sidaas marka distribution ama spreading adduunyada kala saas oo u fidi oo loogu faa'iideystay wadamada ugu badan oo Mareykanka iyo wadamadan Asia iyo Afrikada qaar xataa laga beerto marka wadankeena Soomaaliya historically inta anaga ka ognahay soya beanta kuma arkin in la beero sababtaas waa sababta keentay marka inaan digiraha aan haysani soya beantas aan ku soo darno kuwa aan ka bilaawno ardaydeena kadibna aan baahino oo beeraleydii iyo team kastoo beeraha ka mid ah aan gaarsiino marka soya bean waa dalag aad u muhiimsan oo digiraha hadda ugu fiican oo adduunyada laga tacbado waaye oo dadkan isticmaalaan xoolahan la siisto waxyaabo kale oo productive badan laga soo saarto tijaabadan aan hadda sameynay iyo kuwa la midka ahba waxayna ku leenahay ujeedooyin dhinacyo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin ardaydeena in ay helaan baraatika fiican oo ka saacidaysa ardayda in ay fahmaan waxa ay baranayaan sidoo kaleetana in aan kordhino wax soo saarka wadanka xaqiiqdii wax soo saarka wadankeena aad ayuu hooseeyaa sidoo kale cunnooyinkaan isticmaalno intooda badan waxay ka yimaadaan dibadda markaan beeraynay aan dalaqan loo yaqaano soya bean loo yaqaano markaan beeraynay waxa iska jirtay adii aan dhaxay absiyo iska jirtay waayo maadaama oo la sheegay climate-ka Soomaaliya inay dalaqyo qaar aysan ka bixi karin anagoo taas daliilsanayno haddana waxaan sameynay aan ku adkaysano go'aan qaadanay in soya bean-kan aniga aan tijaabino oo wadanka aan ka tijaabino alxamdulillah digirtii waa ku guulaysanay tijaabada aniga aan ku sameynay climate-kina waa la qabsatay walow ay jiraan aan dhaxay caqabado qaar ay soo wajaheen oo cuduro leaf miner iyo soo wajaheen iyo larva ayagana waxa loo isticmaalay daawooyin kala duwan loo isticmaalay waxaa jirto dalagyo tiro badan oo nalaga dhaadhiciyay in aan wadanka ka bixi karin ayada oo loo haynin tijaabooyin sax ah qaar badan oo ka mid ah aan ogaanay markii aan tijaabinay in ay wadankeena ka bixi karaan oo ay ugu horeyso tijaabadan hadda aan sameynay oo soya beanta sidoo kale waxaa hore u tijaabinay oo lagu guuleystay barandhada qamadiga iyo sunflower-ka iyo dalagyo kaleba marka ujeedada kale aan ka leenahay tijaabadan waxa ay tahay dadkeena in aan tusno wadankeena in uu yahay hodan wixii lagu beerana ay ka bixi karaan kaliya uu u baahan yahay aqoon iyo ku dhiirasho waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan inta challenge qaadanay oo tijaabo cusub isku daynay misana aan ka guul gaarnay taasoo nagu abuuraysa dhiirigelin iyo horsocod iyo inaan ku sii dhiirano inaan hadda iyo dalagyo cusub oo kaleeto aan ku sii suubino tijaabo oo aan ka ogaano xaqiiq
sidoo kale tana weliba aan ku dhiirigelino ardada kaleeto oo anugu fiildiga ah iyo qof walba oo danaynaya arrimaha beeraha inuu ku dhiirido oo uu tijaabiyo isagoon macnaha waxyaabaha mala awaalka oo waxaasi kuma habboon waddanka kama bixi karaan iyo waxyaabaha noocaasa adduunka waa laga tegay mala awaal iyo tusaa iyo malamalag wax lagu qaato waa xaqiiq iyo cilmi iyo tijaabo marka waxaan ku dhiirigelinaynaa cid walba oo fiildiga ku jirta ama beeraha ay quseeyaan inay tijaabiso oo tijaabo xaqiiqo ku salaysan ay ogaataan intii la iska dhihi lahay shaygaas kuma habboona iyo kan waa ku habboon sida tan oo kale taba anagu aan sameynay maasha Allah waxaan is dhihi karaa tijaabooyinka badan oo la sameeyo guuldaro iyo guulba labadaba waa laga gaarayaa waana mid xaqiiqada aan ku gaari karno oo wax walba nagu hagi karta inaan gaarno insha Allah tacaala